فيلم آدو في عن أو أنا حقيقة دقيقة أنا داس كله جعيلة وحسوسية وحياة بدن سبيشال وانا وصيان كا runtii markii hore aan soo socday waxaan is lahaa wuxuu noqonayaa maxaa la yiraahdaa barnaamijyada Soomaalidu iska duubi jireen laakiin runtii wuxuu ahaa film Soomaaliyeed oo dhinac kasta ka taabanaya oo runtii ragga soo sameeyay producer-ka ahaa aan runtii aad ugu mabsuuday habka uu sameeyeen iyo habka sheekadu ahayd waxay ahayd waxaan la arag la maqal anu meel aan ku diido aan siraado maxaa meeshaas iyo meeshaas ayaa maxaa la yiraahdaa qalad ay kaga jireen xitaa ma jirin wallahi runtii intaan daawanay film Soomaali waa filimkii igu xiiso banaan daawado xagga qisada xagga jacaylka nacas filimkaas wuxuu ahaa film aad iyo aad u fiican filimka macna wax dhacayo maarta ma garanaysid so it makes me maarta inaan markasta maarta isku shaqeeyo inaan aadan rabo wax yar sugay maarta and then most important surprise aad ugu farxay in all the things runtaan ka helo waxay tahay gabar yar oo maartay la rabo in wiil jecel in guursato ay dhahay saabeen intuu taab ma rabo ayna marka dambana wiilka jecel doonayso wallahi filmkaas waan ka helo waayo waxa way shactiro iyo film oo jacayl oo isku dhex jiro waxa way wallahi filmkan film la mid kulay wiilgeed ma nafirsanay هذه أنا مفرحسنا هاي مركز كواد هرتي عبد المالك وحسمي وإن برافو شغف يعني يقطي يعني في السماين وشغف فربضن هول فربضن وباهن مقالي مقال هذا هو أفريقيا والسفري برافو يعني هكذا مركا هذه أنا مفرح شكرا هذه يعني فيلم كحوك صار سنة يدان سو كابيو نغن كسومالي جمعنا سي أراس يحودي أما سي Soomaalida u dhaqanto waalidkiisa iyo caruurtiisa oo dhaqmaan waxaad magacawday inuu film jacayl uu ahaa marka pointiya kale ma taabanay filmkaasi qabiil ku taabanay laba special dadka laga tirada badan yahay ee la yasaxa ka Soomaaliya markaan joognay imka waxaan joognaa wadan qurbaa dadku way sameeyeen ilaahay binu wada simanay waxaasna xun bay ahaayeen kulli baan Afrikadan qabo marka aas qabiilhan buu tilmaamay isagoo inanta aabiyada uu soo jeclaan inuu maadaama inuu dadka laga tirada badan yahay inuu ka guursado لكن مركي دبده وقرتي وأركيني قبلي سواي ديش عشة وحبك ما قبل كرو أنا قبل راعي لها يعني وها فيلم كتوساي مرة وحكوا حسوسيني دقن كيني وحيابا غار محل داي تدكوا قلدنايين وبرنامج آدي هذا وش كيناي محل وحيابها برشدين إلا هذا تدقى كل رقمان سلا قصب فوق لا يحيى نوع عسى لكيس برنامج كسدو السعودية سيدو هم مثلين تدقوا عملين تدقوا سليمين لكيس دلورت لو قصلانا ماشي ku jireen oo si fiican u metelay aad iyo aad baan ugu mafsuusanahay maxaa la raahdaa ka qayb galay wallahi marka soo baxay film kula isma film kan kala daadan yaa arkaysa waayo waxaan daawaday Soomaaliyan daawaday habka loo duubay qisooyinka sheekada runtii aad ugu duwanaya sanadka dal hore daawaday marka waxaan aad u hambaleynayaa dadka sameeyay filmkan Cabdi Maalik oo soo duubay iyo qolooyinka filmka shaqada waayo Soomaalida badanaa ka dhaca dhabta ayuu soo sameeyay waxaan rajaynayaa ama leeyahay Cabdi Maalik marka la filin kala cusub أنا فرنت وين فيلم كحمبارسين هاي من التكوف المسميين يود دتك مقابلة الصوماليين غاركود فرنتاس وين ترتيب يعني حتى دتك جلال هاي نيداودان especially الصومالي هدان هاي وأنا هاي dad keenay ka buuxaa waxyaabo maadaama filimka shactirano ku jirtay macnaha hadana wax naxtirino ku jireen waxa qosol ku jireen marka waxa saas marka hadana filimka waxa u maleynaa aniga no filim in oo maartay filmaanta hore Soomaaliya oo maleynaa marka runtaan waxaan u maleynaa filmada Soomaalida hore soo daawanay camilan daawanayno inta dooyeelo maartay jacayl ka hadlaya laakiin waxaan daawanay waxa way ilmo dhalinyaro ah ana kala leeg xogaa naga yar oo jacaylkooda ka hadlaya كروه ما واحد ما قدر أنا يعني فريش وتي ساكل كينوا أنا فريشة واحد نقول هذا السبلاك تي ساكل كينوا ورمين ده الله ما سيد نقول هذا ليس ورنا قصوا كحي واحد ورنكا ورنا قتل حق فوق ده أنا تبتدي لا أنا قصوا ود هذا ما حق وده لا أنا قصوا ولا صبح لا أبو